Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada subaxistaan channel. Maanta waxaan idiin haynaa sheeko ka mid ah sheekooyinkii Juxa ee daawasho wacan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa xaaskii Juxa waxay ka dalbatay inay booqato walaasheed oo degan tuulo u dhow. Dood yar ka bacdi wuu u oggolaaday, wayna tagtay. Nin tuuga ayaa arkay inay tagtay, wuxuuna damcay inuu fiidkii u yimaado oo u dhaco guriga Juxa. Juxa fiidkii intuu soo xarooday ayuu caajis dareemay, waayo ciduu la sheekaysto waayay. Markaa wuxuu damcay inuu seexdo. Layrarkii oo dhan buu damiyey. Intaanu gam'in ayaa tuuggii u soo dhacay guriga. Kadib wuxuu ku dhuuntay sanduuq yar oo agtiisa yaallay. Tuuggii ayaa guriga soo galay, wuuna baarbaaray. Wuxuu ka waayay wax qiimo leh oo xado. Xoogaa ka bacdi ayuu soo galay qolkii Juxa hurday. Wuxuu arkay sanduuq yaalla halkaa. Wuu farxay, wuxuu is yidhi waxaa ku jirta dahab iyo lacag. Sanduuqii buu kor yimid, kadib wuu furay. Markaasuu wuxuu la kulmay si kedis ah Juxa oo sanduuqa ku jira. Markaasuu intuu isku naxay laakiinse ma cararin ayuu wuxuu weydiiyey Juxa, maxaa meesha ku geliyey? Juxa si qosol leh oo deggan ugu jawaabay oo yidhi, waan ogaa inaad ii soo dhacaysid gurigaygana aanay wax ool. Kadib waan ka xishooday, saasaan kaaga dhuuntay. Tuuggii baa isagoo yaaban intuu meeshii ka baxay, isagoo weliba maagaya nasiibkiisa xun. Juxana meeshii wuu qosol la dhacay, halkiibuuna caajiskii kaga ba'ay. Fadlan haddaad taageertay sheekadan, like saar. Haddaad rabtid sheekooyin noocan oo kale ah, commentiga ku soo qor. Nagana mid noqo haddaanan subscriber ahayn. Hadda subscribe garee kanaalkeennan. Mahadsanid.